السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada mar kale maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo filim Mareykan oo horra kaasoo la sameeyay 2011 waxaana lagu magacaabaa The Woman daawasho wacan asxaabta hana naga hilmaamina subscribe iyo like share mahadsanidin filimku waxa uu ku bilaabanayaa haweeney reer mi ah taasoo aan la garanayn waxa ay ku nooshahay meel kayn ah kayntaas oo ciriiri ah waxaa si lama filaan ah ku burburtay nolosheedii nabadda ahayd isla markaana waxa afduubtay nin lagu magacaabo Chris kadib waxa uu bilaabay inuu qoodiyo dariiqadeeda wuxuuna ku sameeyay tijaabooyin badan oo fool xun dhamaanteed isagoo ilbaxnimo ku sameynaya magaca haweeneyda balse ma socon sidii uu qorsheeyay markii uu wiilkiisu bilaabay inuu u dhaqmo si xun aakhirkii maxaa dhacay ma waxay dib u limadoodaa saacadeedii cidlada ilaa aakhirkii si ay u ogaato qalooca maskaxda waxaa imaan doona qaswadayaasha isha ku haay oo ka digtoonow bilowga waxaanu aragnaa gabar yar oo joogto webiga agtiisa taasoo aad mooddo inay dhaawacan tahay oo bogteeda ku xiri lahayd doobo sidii dadkii hore taasoo waalidkeed ka tageen intii ay yareed waxa ayna korisay bahal dugaag ah oo leh maqaar madow iyo dareen udgoon kuwaas oo dhammaantood ka caawiyeen inay ku noolaato duurka markii dambe waxa ay ku qabaysanaysaa webiga iyadoo aan gabi ahaanba ka warqabin qatarta ku dhow waxa korka waardeysanaya Chris kaasoo aad uga helay duurjoogta quruxdeeda waxa uu u dagay qorshe xun kadib waxa uu ku amray xaaskiisa iyo carruurtiisa inay si degdeg ah ku nadiifiyaan maqaasiinka ka hor inta aan la casheen markii hore waa ay la yaaban yihiin baqdin ayayna ka qaadeen balse ma aysan weydiin sababta uu Chris ugu dabayo naagtan shabaqa si kastaba ay ahaataba markii uu shabaqa ku soo xiray waxa uu geeyay xaafadiisii si saayid ayuuna u xirxiray markii uu xirxiray ayuu bilaabay in uu tijaabiyo waxa uuna ku taagay gacanta kadibna fartii ayay ka goosatay waxa ay bilaawday inay cunto fartii Chris saayid ayuu u xanaaqay darbaxsho ayuuna ku dhuftay intaas kadib Chris waxa uu sameeyay ayuu aqaan waayay waxa uuna ku fikiray inuu doonto biskooladii ayuu la soo baxay waxa uuna dhaawac u geystay naagtii duurjoogta ahayd intaas kadib Chris waxa uu ku soo laabtay xaafadii waxa uu isku wacay carruurtiisii iyo xaaskiisii waxa uu sheegay sida wax ay u dhaceen iyo waxa ay sameysay naagtii duurjoogta ahayd dadka dhan fajac iyo layaab ay ku noqotay waxa ugu horeeyay wiilkiisa iyo gabadhiisa curada ahayd intaas kadib gabadhii yareed ayaa sheegtay in cunto loo geeyo naagtii duurjoogta ahayd waxa ayna bilowday hooyadii inay u geeyso naagtii cunto kadib markii cuntadii loo geeyay waxa ay bilowday inay daayso cuntadii saayid ayayna u xanaaqeen dadkii meesha joogay si kastaba ay ahaataba reerkii waa iska casho doonteen balse gabadhii yareed ma aysan casho doonin oo saayid ayay uga carootay wax ay sameysay naagtii duurjoogta ahayd taasoo isxaan u sameynaysay oo sheegtay in loo geeyo badar si kastoo ay ahaataba naagtii duurjoogta ahayd aad ayay u rafaaday iyadoo ay qolka ku jiraan Chris iyo naagtiisii ayaa waxa ay soo xasuusatay darbaxshadii saayid ayayna u murugootay waxa ayna sheegtay in naagtan guriga laga bixiyo kadib markii ay darbaxshadii hore loogu dhuftay ay soo xasuusatay naagtii duurjoogtaheed ayaa go'aankeedu yahay in meeshan ka baxsato balse tabardarro ayaa haysato waxa ayna bilowday inay cuntadii meesha ku qorintay balse Chris xaaskiisii ayaa biyo dabka saaratay kadib markii biyihii ay karsatay waa ay soo wada baxeen waxayna si lama filaan ugu wada imaadeen naagtii duurjoogta ahayd taas kadib Chris waxa uu go'aansaday inuu nadiifiyo naagtan duurjoogta ah balse xaaskiisa kuma faraxsana waxa uu sameeyay waana uu dareemay inay aad u murugaysan tahay xaaskiisa intaas kadib waxa ay u sheegtay inuusan sameyn waxaan balse waxa uu ka dhigtay inay tahay caadi oo caawinayo kaliya waxa ay si lama filaan u soo qaadatay alwaax meesha yaalay xaaska Chris balse si lama filaan ay ku aragtay naagtii oo ka baxsan rabtay xirigii wayna u baaqday Chris ayana u sheegtay inuu ku adkeeyo intaas kadib Chris waxa uu go'aansaday inuu mashiin ku dhaqo naagta uusan ku aadin gacmihiisa maadaama xaaskiisa ay ka biidiiday taas si kastaba ha ahaatee waxa uu bilaabay inuu ku dhaqo matoorkii naagtii balse xaaskiisa Chris wali kuma faraxsan waxa uu sameynayo asagoo shaqadiisa wata xaaskiisa ayaa ku qeylinaysa oo ka dhaaga adeegay balse xaaskiisa ayaa si lama filaan ku dimisay intaas kadib waa uu ku qeyliyay maxaa dhacay ayuuna dhahay balse naagtii duurjoogta ahayd ayaa neefsatay maadaama maanta dhan naqaska uu ku dhignaay xaaska Chris waxaan meesha ka dhacayo si kale ayay u aragtaa balse Chris waxa uu caawinaya naagtan wuxuu rabaa inuu ka dhigo qof caadi ah waana uu sheegay inuu caawin ka tahay markii habeenkii la gaaray naagtii Chris ayaa dhar u keentay duurjoogtii waxaan lagu xirxiray meeshii lagu xirxiri jiray Chris ayaana u keenay cunto si ay u cunto waxa uu sheegay inay caadi tahay oo cunto badarkeeda asagoo hurday oo si lama filaan ku soo kacay waxa uu soo fiiriyay naagtii balse xaaska Chris ayaa si lama filaan u soo daba kacday asagoo oo la jooga naagtii weydiinayna xaalkeeda intaas kadib wiilkii yara ayaa go'aansaday inuu cunto u geeyo naagtii duurjoogta ahayd markii ay ka diiday cuntadeena maqas ayuu la soo baxay balse waxa si lama filaan qeylo ku maqashay gabadhii yareed waxa ayna u sheegtay hooyadii qeyladaas
waxa ay sugeen aabahood. Markii uu imaaday aabihii Chris waxa ay u sheegeen waxa uu ku dhaqaaqay iyo falkii uu sameeyay wiilkii yaraa, balse waxa uu u sheegay inay iska caadi tahay uuna yahay qof dhalinyaro ah wax walbana uu sameey karo. balse hadalkaas aad ay uga caruurtay hooyadii, waxa ayna ku noqotay lama filaan inuu saan u hadlo. waa ay qaylisay, waxa aynu sheegtay inay wada doonto gabarteeda yariista halkaan ay uga tagi doonto Chris iyo wiilkiisa. asagana halkaas uu dul qaadi waayay dharbaxsho ayuuna ku dhuftay, gacan ayuuna u qaaday. intaas kadib waxaa soo booqatay macallimadii wiilkii yaraa kaas oo iskuulka u gambiyay maanta. waxay si lama filaan ula kulantay qoyskii oo buuqa dhex taagan yahay. Chris ayaana soo dhaweeyay, waxaana u sheegay inay soo fadhiisato, balse waxay weydiisay buuqa meeshan ka taagan waxa uu yahay. asagana uu iska dhagataray inuu jawaab siiyo. waxa uu u sheegay inay wax iska caadi yihiin waxa meeshan ka socdo, balse ayada way qaadan weysay waxaan uu sheegayo asaga. waxa uuna diidan yahay inay ogaato buuqa meeshan ka taagan. sidaas darteed waa iskhilaafeen. waxa uuna bilaabay inuu jirdil u geysto. intaas kadib waxa uu keenay maqaasiin oo ku lahay meesha halkaas oo laba iyo halis ay u joogeen. waxa uu ku xiray maqaasiinkii halkaas ayuuna uga soo tagay. waxaa si lama filaan ku soo weeray haweeney Sambiyaana taasoo dhibaato u geysatay. waxa ayna rabtay inay cunto inta eeyaashi aan la gaarin. haweeneydaas ayay ka badbaadi weysay. haweeneydii ayaa si lama filaan banaanka ugu soo baxday. waxa ayna la kulantay gabar yar taasoo u dhalay Chris. waxa ayna u keentay biyo, kadib waxa uu sheegtay inay israacaan ayna aadaan xaafadeeda halkaas ay u kaxayso. waxa ayna rabtaa inay ka dhigto duurjoog. waxa halkaas ku soo dhamaaday filimkeeni. waana mahadsantihiin asxaabta. fadlan subscribe saar haddaana saarin. mahadsanid.